macallimiinta iyo arshada xogtooda jirada in ninkaas laga qabto wadanka haddaan laga qaban wadanka ganaaxa ku dhaca hadduu ku dhaca mas'uuliyadeedu waxa la dhahaa waagi xasan maxamuud waxa la ganaaxa xiriirka Soomaaliya ciyaaraha wadanka ku dheeliyada laga ganaaxa Allah maantana Soomaalinimada in Soomaalida kor u socoto waxa hor istaagsan sida loo jeedo cad waa wasiir talay maanta labi karta maanta wax garab istaag haba yaraadee maan arkin dhiirigelin wax la yiraahdo maan arkin anaga wasiirka horta uma shaqeyno koow labaad anaga xiriirka kubadda cagta ka tirsaneyn shalay xiriirkana bal wasiirka maadaama uu ahay nin dhalinyaro oo fircoon si noogu sheegay anaga aqoon badan ma lahayn waa soo dhaweynay waa nala shaqeeyay ra'iisul wasaaraha nagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha si fiican loo sii shaqeeyay oo ballan qaadi badan loo sameeyay oo labada soo finalkii iyo finalkiiba wixiina ilaa hadda anaga wax aan ka hayn male qorshaha markaan mid kadib warka markii la ciyaar adduunka la aaday waxaan qorshahaynahay inuu sheeg xiriirka kubadda cagta noo sheegeen inaan laba ciyaar bisha Febraayo ilaa dabayaaqadeeda oo ah ku dheeli wadanka Djibouti dhigeen la dheeli doono 17 jirada iyo 20 intiba lama hayo doorasho lama hayo wax la hayo male wadanka aan shalay waa u halganay waxaan u hurnay nafteena iyo maskaxdeena anaga ciyaartooyda wilina diyaar ah oo wadankeena inuu meel sare ka gaaro kubadda cagta wiligeed tartanka hadda laga qayb galay wiligeed 7 sano wadanka uu dhisan yahay oo xiriir kubadda cagta dhisan yahay wiligeed markii ugu horeysay oo African Nation Cup la dhigo markii ugu horeysay maantana Soomaalinimada in Soomaalida kor u socoto waxa hor istaagsan sida loo jeedo cad waa wasiirka gudoomiyaha wasiirka oo khudbada aan ka helay marka wuxuu yiri maalintii la joogay hadaladiis bariyaha mar wuxuu dhahay macnaha danta guud danta khaaska laga hormariyay danta guud maalintii oo kongareeska kadibna wuxuu dhahay anima joogin oo dhahay waraqadaha walba baagada loo qeybiyay oo dastuurkan gacantiisa ku saxiixay waxyaabaha isqabihin waa dawladda waxa laga rabaa cadaalad inay sameyso haduu wasaaraha keena mas'uuliyadiisa leh wadanka hadii laga anaga sida waa joogeynaa laakiin sumcad darro iyo sharaf darro waxay tahay ra'iisul wasaaraha soo magacaabay iyo wasiirkaba labadooda markii Soomaaliya laga ciyaar raalka haduu ra'iisul wasaaraha raalka waxa laga rabaa inuu ka hadlo wasiirka shalay asaa wadanka u keenay isboortka ciyaaraha madalay dhalinyarada wadamada la azaagayna waxay istaan dhiirigelin dawladahooda iyo wasaaradahooda iyo xiriiradooda dhiirigeliha waxay ku dhaxreysay wadamada barnaamijka ay ku dhaxreysay anaga wadankeeni aan joognaa anaga saa u jeed qoraxda u jeesaa maanta 7 saac baraan soo istaagay ilaa hadda istaagsana qorax markuu halkan ka tagay ilmaheen ku laabay marka maalin kasta aan istaagsana ana markay nin oo buruuf ku socdo meel ku dhex jiro inuu shaqadeena hor istaago in laga qabto sumad Soomaaliyeed oo dhan waxaan sheegay meel kasta adduunka meel kasta joogto waxaan sheegaynaa in caqabada ugu weyn oo macnaha xulka qaranka haysato iyo sharafta Soomaalinimada wax ugu weyn lagu dhacay waa wasiirka waa in laga qabto bulshada Soomaaliyeed anaga shaqadan qaban waa ku soo guulaysanay kuma hayno abaalmarin kuma haysano wax kuma haysano laakiin wali waxa taagan waxa noo muuqdo natiijada Soomaaliya World Cup inay ka qayb gasho inaan geeyno anaga ciyaartooyda maalinka qoraxdan saan u istaagsanahay qaf biyana siisa male qaf wax nagu sheegtay wasiir wax nagu sheegan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse labadu waxaan u darayaa inay naga horleeyaan dadka hor istaagsan doorashada oo ugu horeeyay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha waana ninka kaliya caqabada ku ah Soomaaliya sportskeeda diidan inuu horumaro wasiirka horeeyo Xamse jooga sportskaas iyo xiriir soo faragashan waa Khadiija joogto mooyis soo faragashan ninkan rag xiriirka ka tagay oo meel kale joogan oo wadankan wax rajay kaliya hadii wax qabaayeen mar hore wax qabalahay dabada marba ilinka garaac la dhahay ana waxaan sheegay wasiirka ilaahay baa awood leh inuu soo awood lahayn bariya la bedeli karaa waxa waa siyaasad waxa lagu weyn ku joogo annaga meeshayna joogina sports macallin ahaan waa joogina waxaan ka codsanaynaa aniga waa Nuur Maxamed Amiin iyo walaalkay Maxamed Bashiir Ali oo ah macallin koowaad iyo macallin labaad aan kala nahay iyo ciyaartooyda geesiyalkayga oo habeen iyo maalin aan u helanayo qaranka wadankeena inaan u soo difaacno taariikhda lama huraanka ah ee CAF ma aragno asaakeen dawladooda kaalmeeyo way xareesiin ciyaarta jaabe dheelan dhiirigelin faraar badan haystaan ilaa haddana wax dhiirigelin aan ka hayno ma jirto waxna garab istaagsana ma aragno hamiga nagu jiro inaan tartankaas ka qayb galno oo aan ilaahay idinkiis rabno inaan ku soo guuleysano oo taariikhiga ah
caqabadan hoo istaagsan waxaan ka codsanayaa anoo macalinka koowaad ah aniga iyo macalinkeyga labaad iyo ciyaartooyda geesiyaalka ah oo aan rabno inaan waddankeena calankeena soo difaacno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wixii caqabada oo hor istaagsan inay naga qaadaan caqabaha sida tartankaas aan uga qaybgali lahayn hadduu ila rakanado habeen iyo maalin hamigeen wuxuu yahay inaan tartankaas ka qayb galno aniga geesiyaalkeeda iyo macalinkeyga fadlan waxaan ka codsahaa cod dheer iyo cod gaaban aan maanta madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed iyo Soomaaliya oo dhan meel kasta dal iyo dibad ay joogaan war aniga tartamo ma hayno oo tijaabooyin ma hayno February dhamaadkeeda waxaa noo balan garaysnaa inaan Djibouti tagno 2 ciyaar oo tijaabaan dhigno waxaa kaloo noo balan Mars noo qorshaha noogu jirtay inaan tartan Afrigeesood aan dhigno oo si aan maartaa way aragnimo aan u sii helno tijaabooyinkaas aan istijaabino waxaa soo dhan ma hayno waxaan hortaagana ma aqaanay caqabad waxaan ka codsaa madaxweynuhu iyo wasaaraha fadlan waa in dib nool fi caqabad naga hortaagan dowladahaasna dowladooda aad taageerto wasaaradooda taageeraan xiriiradooda taageeraan waxaan ka codsanayaa anagoo macalinka koowaad ila qabaan macalinkeyga labaad iyo ciyaartooydu ila qabaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxa caqabad naga hortaagan inaan maarta tartankaas aan ka qayb galno fadlan waa idin baryaynaa caqabadaas naga qaadaysaa tartankeena uga qayb galno